راجعون waxaan tacsileynaya Abubakar Umar Ismaaciil oo shalay ku geeriyooday Waacato oo goob reer xoolo dhaqatadu degto aan halka markii awrsaas dhacday waxa aanu sidii ahaan jirtay isla markiiba taliye qaybiloosaan ka soo dhaqaaqay gobolka Sanaag waxaan soo gaaray degmada Ceelafweyn sida arinta doorkan ku leeyahay uga qaato waxaan wareysay iyo baaris degdeg galiyay ciidankii booliiska ee goobta joogay iyo sarkaalkii watay waxaan maamulka degmada ku balnayn xaaladda nabadgelyo la xasiliyo oo la ilaaliyo waxaanu aragnay in guddida nabadgelyada ee gobolka aan xaajada looga maarmayn kadib markaan khadka telefoonka ku wada xiriirnay waxay ku soo kalleen gobolka Sanaag salaadii subax baa la isugu wada yimid degmada Ceelafweyn warbixin ka hor markii ay warbixintayga qaateen goobta oo marxuumka isku dhintay afartii askari ugu dhawaa waxaan isla qaadanay baaris degdeg la geliyo in baaris degdeg la geliyo isla qaadanay afarta askari la reesteeyo waanu isla qaadanay waxaanu yeedhnay ehelkii marxuumka wax garadkii beesha oo marxuumka ka soo jeeday cabasho ka bacdi markii aan suuraysanay waxaanu qaadnay tallaabo horteed waxaan isla garanay afarta askari inay reesta ahaadaan ilaa iyo inta marxuumka cidii gacantiisa ay ku baxday caddaanayso taliyahayga ciidanka booliiskana waan by telephone aan ku wada xiriirnay waa nala qaatay in baarista la dedejiyo lana helo ciddii marxuumka ay xabaddu kaga dhacday iyadoo arrintaasi meel fiican maraysa wax aan la filayn ma'amarada aanaan eegayn dhacdo aanaan reer Ceelafweyn ka filayn ummadda kale ee degmada Ceelafweyn ku nool aanu ka raali gelinayno ummad fara badan baa degmada Ceelafweyn degta inuu qof waliba caqligiisa qori ku soo qaato inuu weeraro guddidii nabadgelyada iyo ciidankii booliiska magaaladiina qas geliyo wadooyinka la jaro calin sharci darro ah lala soo baxo ciddii tafalkaa ku dhaqaaqday iyo ciddii ka talisayba haddii ilaahay ka dhigo waxaan bulshada reer Soomaaliland sheegayaa in sharciga loo horkeeni doono maaha kuwii hore Ceelafweyn u naafeeyey ee bulshada kale ka reebay ee deegaamada kale ka reebay ayaa maanta qori la dhexmaraya kama yeelayno waxay noqonaysaa meel amni ah mala noqonayso meel ninka gacan ku dhigla ama ninka dambilaha ku dhuumaanaysto oo hadda shaarkaan u soo xidho waxaan leeyahay bulshada reer Ceelafweyn maskaxda wacan iyo kuwa caqliga wacan Ceelafweyn waxa idinku filan tahay oo idinku anfacda amni yaan caruurihiin iyo meheradihiin iyo daaradihiin iyo qabiilan waxba idin tarno fi aakhiraseega yaan la idinku jara habaabin yaan la dariiqa saxda la idinka duwi sababta loo laayay ciidanka iyo madaxdii gobolka ee har qaran madaxweynihii gobolka fadhiyay oo arrinta ka talinayay oo cid kale u aamini waayay halka ay dabada ku haysanayaan aniga qalinkii warqad wala tagay bugu ama taliye qaybta bugu waa kula baanaya maanta in la soo weeraro oo rasaas la dhaco idinkama aanan eegin Ceelafweyn khatar bay gaadhay maanta ilaahay ka sokow iyo maamulka jooga soo gacan qabateeyay iyo bulshada kale ku nool umaydaan tulin kuwa caruurahoodiyo ubadkoodu ku nool yahayow ee majority-ga Ceelafweyn u sheeganayo umaydaan tulin ummadan xambaaq dheer ugu baaqaya bulshada ku nool degmada Ceelafweyn miyi iyo magaalaba ha laga qayb qaato Ceelafweyn si amni noqon lahayd sidii loola shaqayn lahaa ciidamada degan askarigii booliiska iyo askarigii ciidanka qaranka iyo askarigii asluubta suuqa marayay waxa weeye gacan inta ka dhiman ciidamada waa inta bulshada reer Ceelafweyn ka dhintay